السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka tigtaawanisid waa abna official wallahi janaka tiya ka soo subscribe saar si ku soo gaara muuqaalada muuqaalkan waxa kaga hadlaynaa taariikhda shirkadaha duulimaadka ee Qatar Airways. Qatar Airways waxa la aasaasay dabayaaqadii November 1993. Qatar Airways waxay bilowday howlaheedii 20kii Janaayo 1994. asal ahaan waxa iska leh qoyska boqortooyada ee Qatar Airways ayaa dib loo bilaabay 1997 iyadoo hoos timaad koox maareen cusub. dowladda Qatar waxay haysataa 50% saamiga ay ku leedahay, inta soo hartayna waxa iska leh maalgashadayaal gaar ah kuwaas oo ah ayagu saamigooda ay kala qaybsanayaan. inta soo hartay Qatar Airways waxay horay u soo martay horumar weyn 2003 markii ay noqotay duulimaadkii ugu horeeyay adduunka ee ka gudba xisaabinta amniga ee caybta ee cusub markaas nidaam cusub ee lagu talagalay inay maraan duulimaadka diyaaradaha kala duwan ee adduunka, taas oo ay noqotay Qatar Airways shirkadii ugu horeysay. sanadkii 2004 Qatar Airways waxaa la guddoonsiiyay darajada 5 star ee sharafta ee heerka sare ee adeegga iyadoo ku biirtay koox yar oo duulimaadyo ah. darajada 5 star airline waxaa lagu abaalmariyaa shirkadaha diyaaradaha ee ku guuleysta waxqabadka guud ee tayada sare leh. Qatar Airways waxay ahayd diyaaradda rasmiga ah ee ciyaaraha Asia ee 2005 kaas oo lagu qabtay Doha. sanadkii 2006 Qatar Airways ayaa loo furay garoonka caalamiga ah ee Doha, terminalkii ugu horeeyay adduunka ee loo qoondeeyay rakaabka heerka koowaad ee ganacsiga, wuxuuna taabtay guul muhiim ah markii la keenay diyaaradeedii 50aad ee loo yaqaan Airbus A340 ilaa 600. sanadkii 2007 Qatar Airways waxay duulimaadyo ku tagtay waqooyiga Ameerika iyadoo ka kacday Doha ilaa New York, iyadoo horay u sii martay Geneva iyo Washington DC oo ah meesha labaad ee Mareykanka. sanadkii 2009 Qatar Airways waxay duulimaadyo ku tagtay Australia iyadoo Melbourne ay tahay meeshii ugu horeysay ay ku tagto duulimaad ee dalka Australia. sanadkii 2010 Qatar Airways waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee tirada yar ee u duulay dhammaan 6 qaaradood ee laga degan yahay adduunweynaha markii ay bilaabeen duulimaadkoodii ugu horeeyay ee South America ee Buenos Aires iyo Sao Paulo. sanadkii 2013 Qatar Airways waxay soo saartay application-keedii mobilada iyadoo ugu talagashay dadka isticmaala Android-ka iyo iPhone-ka iyo BlackBerry-ga iyo si fudud ugu dalban kara adeegyada kala duwan ee shirkadda bixiso. bishii Oktoobar 2013 Qatar Airways waxay noqotay duulimaadkii ugu horeeyay ee gacanka khaliijka ee ku biiro isbahaysiga Halworld kadib markii loo doortay inuu xubin ka noqdo 2012. bishii Febraayo 2014 Qatar Airways waxay ku dhawaaqday inay soo saartay dhammaan adeegga heerka ganacsiga ee Doha ilaa London Heathrow kaas oo iska kaashanayaan labada dowladeed ee Britain iyo Qatar. September 2014 Qatar waxay ku dhawaaqday mashruuc diyaarad cusub oo ka madax bannaan Qatar Airways ah inay dhisi doonto, taas oo lagu magac daray Almaha Airways kaas oo ugu dambeyn la kansalay sanadkii 2017 sababo jira awgeed. Febraayo 2017 Qatar waxay qaaday duulimaadkii ugu dheeraa ee inta u dhaxaysa Qatar Doha ilaa New Zealand Auckland. waxay ka duushay diyaaradda Doha oo ku taala Qatar waxayna u duushay Auckland oo ku taala New Zealand. waa duulimaadkii ugu dheeraa ee diyaaradda Qatar ee sameyso. bishii Juun 2017 qalaasaha diblomaasiyadeed awgeed ee dalalka Carabta ka dhacay diyaaradaha Qatar Airways waxaa laga mamnuucay inay u duusho dhulka Imaaraadka. sidoo kale diyaaradaha Imaaraadka waxaa laga mamnuucay inay u soo duulaan dalka Qatar. sidoo kale diyaaradda Qatar Airways waxaa laga mamnuucay inay u duusho dalka Saudi Arabia. sidoo kale diyaaradaha Saudi Arabia laga leeyahay waxaa laga mamnuucay inay u soo duulaan dalka Qatar. waa khilaafkii aad u dheeraa ama u xumaa ee ka dhacay dalalka Carabta ee khaliijka. bishii Juun 2017 Qatar Airways oo caan ku ah soo bandhigida heerarka ugu sareeya duulimaadka ayaa soo saartay heer cusub oo hal-abuurnimo ah oo ay la gashay Kuwait, taas oo ah inay qaybta business class ee diyaaradaha Qatar lagu soo kordhiyay in qofka rakaabka uu yeelanayo sariir uu ku seexdo
sidoo kale uu yeelanayo meel gaar ah oo asiga u xiran oo u samaysan qaab qol ah uu ku raaxaysanayo oo keligiis ku dhex jiro. intii lagu guda jiray sanad maaliyadeedkii 2017-2018 Qatar Airways waxay soo gaartay 14 meelood oo cusub, sidoo kale waxay soo dhaweysay diyaaradeedii 200aad bishii Maarso 2020 markii uu dhacay cudurka faafa ee COVID-19. Qatar Airways waxay noqotay diyaaradii ugu horeysay ama diyaaradii ugu sareysay ee fulisa badqabka iyo ammaanka cudurka COVID-19 ayadoo macaamiisheeda 100% ka dhowrtay safety-ga loo yaqaan in laga badbaado COVID-19, taasoo shuruucyo adag laga soo saaray dhammaan adduunyada. Qatar Airways waa mid ka mid ah 10 shirkadood ee kaliya adduunka lagu abaalmariyo qiimeynta 5 xidig ee loo yaqaan 5 star ee ay bixiyaan qolooyinka loo yaqaan Skytrax. diyaaradda ayaa ku guuleysatay abaalmarinta diyaaradda ugu fiican dunida markii shanaad ee sanadkii 2019. ma jiraan dhacdooyin shileed oo ka dhacay diyaaradda Qatar Airways ilaa hadda inta ay aasaasan tahay. waa mid ka mid ah guulaha waaweyn ee ku faani karto duulimaadka ama diyaaradaha Qatar Airways. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad wax badan ka faa'iiday. fadlan channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe saar, sidoo kale booqo website-ka ee linkiga hoose yaalo alimusa.com. channelkan subscribe saar.